waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta arrimaha bariga Somaliland iyo qaylada ka soo yeedhisa aadi aniga oo ah caaqil Cumar Cismaan Maxamed kana mid ah aqwaasha gobolka Awdal waxaan doonayaa maanta inaan halkan ka soo jeediyo qaylada ka imanaysa bariga Somaliland aaga Tukaraq iyo gobolka Sanaag iyo Ceelafweyn arrimahaas oo aad iyo aad maskaxdeena iyo qalbigeennaba uga guuxaya haddaan ku horeeyo arrinka Sool iyo gobolka Sool iyo aaga Tukaraq horta ilaahay baa ka dhigay Somaliland Tukaraq iyo Sool oo isaaqna kama dhigin musabbixna kama dhigin gadabuursna kama dhigin dhulmaantana kama dhigin quwad inaga xoog roon oo inaga badnayd oo gumaysigii Ingiriiskii baa sameeyay Somaliland marka Somaliland wax ama isaaq lagu canaanto ama musabbixi lagu canaanto ama cid lagu canaanto maahe waa arrin horteen dhacday aad iyo aad arrin wuxun oo dib ku ah Somaliland iyo Puntland labada dawladood ama labada xukuumadood wadad walaala shacabkaasi wadad walaala dadka daarood iyo dadka isaaq iyo dadka Somaliland labaduba wadad walaala way hase ahaatee arrintan noqodkeeda iyo dibteeda iyo garashadeeda iyo mas'uuliyadeeda wixii dhintay iyo inaga nabadgeliyay waxa mas'uuliyadeeda aan saaraya anigu dhulmahanti waayo dhulmahanti isaga khaatuma isaga Puntland jooga isaga Xamar jooga isaga Somaliland jooga isaga markuu Puntland joogana hayayle markuu Somaliland joogana hayayle arrinta gafkeeda iyo mushkiladeeda iyo dambigeeda waxaan saaraya dhulmahanti waxaan u saaraya sababtaan u saaraya aniga xijaalayga haysa dhulmahanti anagu saaxiib baan nahay boorama iyo laascaanood USB bay 9 kiis ku hay aabhayna wuxuu igu yiri sheego xisbigii USB aha inaanay dhulmahanti doqbahay asee ay yeeliyeen arrintan u yeelayaan war dhulmahanto war arrinkan cagta oo daarood iyo isaaq kala badbaadi war wadad walaala war isaaq iyo daarood dad walaala way war wadad isku ehela war wadad gacal war wadad walaala war wadad isdalay war Soomaaliya oo dhan baa wax isku war Soomaali waxba isku wada tahay maalin baa iman doonto wax laana laga xishoodo oo la yiraahdo aw nin walba yiraahdo war maxay igu wati abxa la yiraahdo Soomaalidu wax ku ridi jirtay markaan shandadaha iyo sanaaduuqda iyo qasnadaha lahayd wax abxa la yiraahdo lagu ridi jiray masaabiirta iyo mudaca iyo wixii la tolayay wixii hal wax baa lagu ridi jiray taariikhda Soomaalida nin walba wixii uu ka yeelay abxadaas lagu ridaya anigu se waxaan leeyahay war Soomaaliya la kala badbaadiyo Soomaali 100 sano ha gaadhay dhigal wuxuu maalintii arta lagu shirayay 100 sano ha gaadhay Soomaali way isku iman وانا رنو ويسقيما لكن والبي وحي وجيستي أيو أبحث كلام بحث دوناي أنا وحنا لا الصومالي هلا كلام بتبادي وهو الصومالي هلا كلام بتبادي وملحوينها مصبيح عبدي يو عبدي ولي قاس عبدي ولي علي قاس وحنا لا وردك وهو يرجع أميناتي نتدك كلام بتبادية وردتك كلام بتبادية والدار دارود هي إساق هي هوية هي مشيرتين يو إن محاكو هذا nimanka la yiraahdo digifiya midfle inta iyo ciise iyo gadabuurs walaal waraniga hadii gadabuurs aan xanuunsada waan xanuunsanaya haduu isaaq xanuunsada waan xanuunsanaya hadii daarood xanuunsada waan xanuunsanaya haduu hawiye xanuunsada waan xanuunsanaya hadii digifiya midfle xanuunsada waan xanuunsanaya hadii ciise xanuunsadana waan xanuunsanaya war Soomaalinimada hal badbaadiyo waa la isku soo noqon Soomaalida hal badbaadiyo islaamnimada hal badbaadiyo walaalnimada hal badbaadiyo laakiin nin walba waxa uu yahay intay Soomaali bogsanayso ay isnabad galiyo ilaahay baan dhulmaanta ka dhigay Somaliland war Somaliland baa tahay dhulmaanto inta daarooda warana Somad USB tiraayid ana kula kicilaadu ama isaaq kugu qaldamay ama kugu qaldamay Somaliland kugu qaldantay ana kula ciidaho kula xisbiyo kula tole maxaad iyo oran weyda aniga gartaada gelahay maxaad ya daarood ma umada حرلا إياه فرلا إياه إنت هاكل الشوكة أياد سكوي يرسل هذا ساق يو دارو تيستر محد ساق يدارو سكوي جيد محد سكوي جينية محد كده حي ولا نما كده حيسا إسلام نما كده حيسا إهل با كده حي قعد نما كده حيسا نين إساقون دارو عد كلها ينمشتو نين دارو دون إساق عد كلها ينمشتو مركا هلا كلا بدبادية تدك dhulmahan taha taliyo dhulmahanto waxaan kugu la talinayaa walaalnimo kugu la talinayaa oo aan USB nimo kugu la talinayaa waad gardaran tahay gardarada ka joog arrinkaana dib uga noqo dadka walaalaha ee islaamka ah ee Tukaraq iyo Sool isku dilayana adigu kala badbaadin kariye hadaad kala badbaadin karo weydo taariikhdu waxay sheegi doontaa wixii ka dhacayna dad mas'uul ka tahay anigana waa la iga qabsano ninkii kugu xigabanay musabbixi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne ku xigeenka Somaliland aad iyo aad baan salaamayaa waxaan leeyahay iyagana ilaahay sida xaq u yahay idin garasiyo arrinta badbaadiya Abdi Waliga Ali Gaas iyo ninka la yiraahdo Amay madaxweyne ku xigeenka iyagana waxaan leeyahay war hoy taliya
warhooy taliyo caaqiba taliyo war cidibta dambe ka taliya warhooy ka taliya cidibta dambe yahay inaan ka hadlo arintan gobolka Sanaag iyo arintan Ceelaf Weyn Soomaalidu waxay tiraahdaa cad cidibta ka baxay culeysna foolxumana looma sidan karo xanuunna looma goyn karo bal arinta ma deyn karo waxaan bay nagu haysaa haddii aynu ka hadalna weynaga arkii ka dhameyn kari weynayo markastoo qayla ka dhacdo oo dagaal ka dhaco oo ay istilaan walaalaha halkaas jooga guurtida gurmata oo golaha baarlamaanka gurmata oo siyaasiyiinta gurmata oo xukuumadda gurmata oo xisbiyada mucaaradka gurmata oo salaadiinta gurmata oo waxgaradka gurmata dhammaantoodba meeshay tagaan markay meesha tagaan ay halka tagaan dee cid walba gaarkeed u galmeysay arrinkii inta isku tagaan bay guurtiyaan u galaan dee markay guurtiyaan u galaan haddana arrinkii waxba kama naasacada waxa la yiri laba arrimood uun bay mid tahay horta Ceelaf Weyn biciida iyo Sacad waxa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa way wiil weydaay ma alla weydo horta way wiil waayeen ma alla waayaan maalin u baahnay heshiin doonaan laakiin dadka Soomaaliland ama xukuumad leh ama xisbiyale ama siyaasi leh ama salaadiin leh ceeb ka soo halka uga soo yeeto ceebta iyaga qaba bini'aadamku way dagaalamaan la yaab ma laha biciida iyo Sacad wadada istilo taa dhex martay laakiin in loo talin waayo ayaan daraa taladooda la garan waayo ba ayaan daraa waxay ila tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalmihii dhaweyd ee Rabadaanta shir buu qabtay culimada Soomaaliland buu isugu yeeray madaxweynaha ku-xigeenadii horena uu isugu yeeray arinta inuu diru doonaya waxaan leeyahay arinta ha u diri inkastoo madaxweyne go'aanku hadda iska leedahay oo aan kugu ayidsanahay oo kugu raacsanahay haddana tala waxay naga tahay aniga ha u dirin madaxweynaha ku-xigeenada siyaasi weey arrin siyaasi ma wadaadadana ha u dirin mas'ala diini la isma haysto dhaxalkii Sheekh Isxaaq la isma haysto wadaadadu ma qaybinayaan oo Biciidiyo Sacad isma haystaan waxay isku haystaan arrin dhaqan arrinta dhaqankana siyaasi ma galo siyaasigu markuu dadka la hadlayo mujtamaca la hadlayo kulay cidun ba mid walba xigta waxay la tahay inaanay arrinta siyaasiga laga daayo culimadana laga daayo arrinta waxaan oran lahaa caaqiladu ha galeen 15 caaqil madaxweyne ku-xigeenkaaga madaxweyne u diro oo gobolka Boorama ee Awdala waxaad tiraahdaa 15 caaqil oo beesha Makadoora iyagu yeedhay beesha waxaan ku ogahay talaan ku ogahay tufna waan ku ogahay dabeetana kuugu yeedho waxaad tiraahdaa arrinka arrin madaxweyne saar wareegta ku soo saar haddaad 15kii naan talada beesha taal ka keen weydaan warcad idinka u qoolan waxa la yiri arrinka bari baa waxa jirtay deegaankan dila ayaa laba nin oo cajab badan ayaa arrin dhex maray xaloon jiray Sheekh Umar Sheekh Muuse Cadi iyo Xuseen Migani dabeetana niman tolkooda oo Maxamuudka ayaa waxay yiraahdeen wararkiina galnaa kaalay arrinkood bay galan oo yeedhay aroortii baa garbida dilaad iyo gobka dilaad baa la fariistay dabeetana waxa la yiri wabar hadla ninkii ugu horeeyay hadalkii bilaabay 8 hadalkii bilaabay 8 markuu hadalkii bilaabay buu 12kii ku gooyay oo waxla halkaas aan dhigay buu intuu buur ka saaray hadalkii buu yiri halkaas aan dhigay ninkii kale la yiri hadal ninkiina koobdii intuu bilaabay ayuu 5tii galabnimo hadalkii gooyay isna 9 doox buu ka talaabay dabeetana garta buu nimankii guurtidii way bixinay waxay yiraahdeen berita aynoo ahaato balantu markay tageen ay guurtidii fadhiisatay ay yiraahdeen waryaareen maxaa balde wal warama hadalkii muxuu ahaa nimbow garan waay waxay ku hadleen anu waan garan waay waxay ku hadlayeen bow ninka 5 saacadood hadlay wuxuu ku hadlayay waan garan waay kii kale wuxuu anna waan garan waay dabeetana maxaa yeelay yani iska hooyeen iska tagno waxba inaan tagno inaan go'aan sheegin ninkii uu garasho roonaa baa yiri war ma yadee taas way nagu ceebe aanu tagna nimanka dabeetana uu tagay wuxuu war nima yahow waan idin yeernay arrinkiina waan galay waan qorsheynay waan kala eegnay hadii waxaan u garanay inaad arrinkii noogu noqotaan nimankii saas way iganoo yaabeen waxay wariyay nimanku maxay leeyihiin haddana iyagii bay istaageen waxay yidhaahdeen war nimanku wadii caqlina kala saarama yaaleen warda ilaahay inaku iskeen badee maxaa yeelaa waxay yidhaahdeen haddii ilaahay iskeen badee aan is saamaxin way isku boodin biciidiyo yooni iyo Sacad de haddii ay nimankii guurtida ahaa ee Soomaaliland uga tagay taladoodii garan waayeen ma waxay garan waayeen waxay Sheekh Umar iyo Xuseen mi garan garteen oo yiraahdaan war talada waxay aqal dhaama jiray aynu saamaxno haddii guurtidii markay garan weyday waxay ku hadasho iyo dadkii meesha tagay waxay yiraahdaan iyaguna war kitaab ku dhaarta taladooda kitaab ku dhaartay tiraaya hebel baa gardaran iyo cid baa gardaran cidina ma maqal wali ma naan maqal biciida gardaran ama Sacad baa gardaran bilaad marka gar wada heshaama jirto waxaan leeyahay
arrinta madaxweynaha waxaan kula talin lahaa inuu 15 ka caaqil ee beesha makadoora oo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Sayidci u diro waa uu yiraahday ii keen uu 15 kaanin wareegto soo saaro arrinka galo iyaga arrinka galaya arrin dhaqan weey iyaga garanaya madaxweyne ku xigeenadu kuraasi bay ku fadhiisanayaan arrinkan kuraasi loo fadhiisto ma waarin geedka loo fadhiisto boorka loo fadhiisto dhaxanta loo galo ma madaxweyne ku xigeenba ayaa dhaxan iyo cadeed joog madaxweyne go'aankaada isgale waan kugu mahadinaynaa haddii aad qaatana waad mahadsantahay haddaanad qaadanna waad ku mahadsantahay haddaad sina dhageysatay waad ku mahadsantahay intaad dhageystay assalaamu calaykum waraxmatullahi